bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waa Warsan TV. waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya oo wada qorshe dib lagu soo celinayo muwaadiniin ku xirnaa dalka Tanzania iyo magacyada Soomaali ka soo muuqatay maxkamad ku taala dalka Kenya. haddii aynu ku bilowno, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in dhawaan dalka dib loogu soo celin doono muwaadiniin Soomaaliyeed oo muddo ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Zambia. safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Zambia ayaa sheegtay in muwaadiniintan oo u badan dhalinyaro ay ku guuleysatay in ay ka soo duceyso ama ay ka soo bixiso xabsiyada ay ku xirnaayeen isla markaana ay dhawaan soo gaari doonaan dalka. inta aan ku guda jirnay bisha Ramadaan, waxay noo suura gashay in iyagoo caafimaadkooda uu taam yahay in aan dalka dib ugu celino ama wadankooda, gaar ahaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo in muddo ah ku xirnaa xabsida Jamhuuriyadda Zambia ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda Soomaaliya ee Zambia. sidoo kale waxaa qoraalka ka soo baxay safaaradda lagu yiri, waxaan rajaynaynaa sidoo kale inta kale ee ku hartay xabsiyada aan iyagoo bad qaba ku celino wadankooda. Zambia ayaa ka mid ah dalalka ay ku xiran yihiin dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah, kuwaas oo inta badan halkaasi u sii mara si ay ugu sii gudbaan dalalka kale ee Afrika, iyaga oo baadigoob ugu jira nolol ka bedelan midda ay ku haystaan dalkooda. tan iyo 2016 xafiiska ergeyga gaarka ah ee Jamhuuriyadda ayaa ka shaqeynayay soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xabsiyada, iyaga oo gacan ka helaya dowladda federaalka. ugu dambeyntii 7 qof oo Soomaali ah ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taala magaalada Eldoret ee dalka Kenya, iyadoo ay maxkamaddu ay ogolaatay dambiilayaasha hortagta qaybta booliska ee ka hortaga argagixisada in ay sii hayaan tuhmanayaasha Soomaalida muddo 5 maalmood ah. eedeysanayaashan ayaa isugu jira 4 nin iyo sidoo kale 3 gabdhood, waxaana magacyadooda lagu kala sheegay Cabdiqaadir Cali Xuseen, Idris Maxamuud, Ahmed Kooshin, Liibaan Cabdi Sugulle, Naciime Yuusuf Axmed, Fartuun Sugulle iyo sidoo kale Leyla Abshir. go'aanka maxkamadda ayaa imaanaya kadib markii taliska booliska uu ka codsaday in loo ogolaado in eedeysanayaasha lagu sii hayo saldhigga dhexe ee Eldoret 5 maalmood ee soo socota. tuhmanayaashan Soomaalida ayaa la sheegay in lagu shakisan yahay in ay ku lug lahaayeen faldambiyeedyo ka hor imaanaya sharciga la dagaalanka argagixisada ee number 30 ee 2012 la sameeyay, sida laga soo xigtay taliska booliska ee dalkaasi. eedeysanayaasha maadaama aysan ka soo horjeedin codsiga sargaalka baarista, maxkamaddan ayaa martay in lagu hayo saldhigga booliska Eldoret 5 maalmood si ay booliska awood ugu yeeshaan in ay soo gabagabeeyaan baaritaankooda, ayuu ku amray garsooraha. 7 Soomaalida ayaa la soo qabtay dhammaantoodba 15 bishan kadib markii su'aalo la weydiinayay ay badankooduba awoodi waayeen in ay ku hadlaan afka Sawaaxiliga ama Ingiriisiga midna. kiiska Soomaalidan ayaa la qorsheynayaa in dib loo dhageysto 24 bisha Abriil, waxaana dhacdadan ay ku soo aadaysaa xilli saraakiisha socdaalka Kenya ay ku sugan yihiin xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya ee Mooyaale kadib markii ay soo bateen soo galooti sharci darro ah oo ka kala yimid dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya. wararkii waa naginta.